maayar ku-xigeenka degmada berbera ahna kusimaha maayarka nuur cabdi jaamac iyo xogayaha fulinta dowladda hoose degmada berbera suhayb maxamed cali ayaa maanta shir jaraa'id si wada jir ugu qabteen dowladda hoose degmada berbera ayaa ugu horeyntii wuxuu xogayaha fulinta dowladda hoose degmada berbera suhayb maxamed cali ayaa ugu horeyntii wuxuu ka hadlay mashaariicaha socda ee dowladda hoose degmada berbera ka wada degmada berbera iyo mashaariicaha horumarineed ee gebagabada ku dhow iyo sidoo kale qorshaha mashaariicaha sanadkan xogayaha arrinta faahfaahinayana waxaa hadaladiisa ka mid ahaa waxaanu halkan ku qabanaynaa ama shirkan jaraa'id ujeedadiisu ay tahay inaanu xog la wadaagno dadweynaha reer berbera degmada berbera ku dhaqan hawlgallada socda ee ay dowladda hoose ay wado haddii ay tahay mashaariic kuwa hore u socday kuwa gabagaba ah iyo kuwa qorshaysan intaba waxaan jeclahay inaan laba arrimood inaan taabto arrinta koobaad waxa weeye mashruuca la yiraahdo berbera urban development project mashruuca waxaan doonayaa inaan si qoto dheer aan uga warramo anigoo u kala qaadaya ilaa 6 qodob qodobka koobaad bal inaan taariikhdii mashruucan uu lahaa عدة فلونيسة مشروعة أو قضب كلابادة قاب دسميتك مشروعا قيبها مشروعا يوكاكوبي هاي محاقب صومي محاي نوقر شيسان سنة كلابادة كوني يلوي لباتنك مشروعا إن أنت هنتي برشدة غير بربرة أنا وقف تيميو مشروعني وحو بلاب مي سنة كي لبادي كون إيو labaatankii bishii January 30keedii ayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici uu daahfuray muddada waxaynu wada ogsoonahay bil ama 2 bilood kadib inuu si weyn adduunka ugu baahay xanuunkii safmarka ahaa ee nagu cusbaa ee COVID-19 isla markiiba wuxuu curyaamiyay majarihii loogu talagalayna oo ka duway bilowgii iyo habsami u socodkii mashruuca ayuu muxuu ahaayay mashruucaasi habkii loogu talagalay inuu bilowdo iyo dardartii inuu ku bilowdo yaa fulinaya mashruucan yaani qadarka lacagada inta leegi uu ku baxayo yaa fulinaya mashruucan waxa fulinaya hay'adda UN Habitat iyo dowladda hoose ee Berbera iyo midowga Yurub oo muxuu ahaayay iskaashanaya ayaa muxuu ahaayay fulinaya mashruucani wuxuu ka kooban yahay ama laga filayaa inuu dhaliyo ama uu keeno 3 qaybood ama 3 outcome oo baaxad leh inuu ku soo kordhiyo bulshada reer Berbera inuu ku soo kordhiyo oo ay ugu horeyso karti dhisidda shaqaalaha dawladda hoose ama capacity building waxa la yiraahdo qorsheynta iyo horumarinta magaalada kor u qaadista iyo adeeg bixinta muxuu ahaayay dawladda hoose ay qabato maamul wanaaga in la fududeeyo ama la helo magaalo ku haboon muxuu ahaayay in ay dadka maalgashadayaasha ahi hantigooda ay ku aaminaan gabagabadii maayar ku-xigeenka degmada berbera nuur cabdi jaamac ayaa ka hadlay tidhiwadda ay u soo jeediyeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada berbera sidoo kalena wuxuu ka warbixiyay xaafadda xeraabo ee ku taala magaalada berbera sidaad ogtihiin shalay tole waxaa hadlay xildhibaankaas wuxuu maayarkii maayar ku-xigeenka ku eedeeyay inay xeer jibin sameeyeen xeer jibintaas oo ah ka maqnaashiyaha magaalada horta waxaan u sheegayaa xildhibaanka in maaragtay aanay sharcigu ku qornayn in malaa waanu fahmine magaalada kuma qorna magaalada lagama bixi karo annaguna shaqaan ku maqnayn maayarka magaaladu isagu shaqo dibadaaba ku maqnaana shaqo wadanka un ah marka waxaan u sheegayaa horta taasi in uu fahmo in sharciga ay muhiim tahay taa marka laga yimaado waxaan doonayaa in aan qodobka xaafadan xiraabo iyadana ku yaran noqdo xiraabo sidoo xogayuhu tilmaamay waa hanti qaran oo dawladda hoose leeday iyadoo gacanta ay ku hayso waxaan u dhisayn gareynay waxaan doonayaa bulshada reer Berbera ay fahmaan halkaas waxaan u dhisayn gareynay maam
sheegaya 46 degsimo oo yaryar oo suuq in laga sameeyo 46 ka 12 qoys ee degan ee shacabka xiraabo deganaa ayaa iska leh 34 kale soo haray waxa iska leh jamciyadda Sooyaal wax cid gaar ah ay qaadanayso amba cid lagu eedayn karo midnaba ma shaqaalaha dawladda hoose waa shaqaalo institution ka shaqeeya waxa xukuma gudida fulinta xildhibaanku directi uma xukumo umana hanjabi karo marka waxaan doonayaa inaan u sheego xildhibaanka in aanay shaqaalaha dawladdu ay yihiin shaqo loo diray shaqaalaha dawladda hoose ay yihiin shaqo aan u dirnay hawlihii maalmeedkii ummadda ay u hayeen aanay yihiin shaqaalo u madax bannaan shaqadooda. Sadiq Arab Sulaiman telefishinka caalamiga ah Cable TV magaalada Berbera. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.